السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. gabadhan waxaa lagu magacaabaa Malyuun Cusmaan Faarax. Ku digashada aad ay u xun tahay waxaana ku leeyahay weligaa ha ku digan qof maskiin ah ama qof xaalkiisa aadan ka warqabin oo asiga laftirkiisa dulmi iyo cadaalad darro tirsanaya. Gabadhan waxay barteeda soo dhigtay 3 maalin ka hor geeridii Generaal Sheegow qoraal ama boosti ay ku weerarayso generaalka geeriyooday marxuumka meydka una baahan duco iyo cadaalad maadaama isaga oo dulmi iyo cadaalad darro tirsanaya uu geeriyooday naftana ay ka baxday. Haddaba boostigeeda ayay ku sheegtay inuu ahaa nin tuug ah, wax dhacayay, dad dilay, ilaahayna uu ka soo saaray, kuwa kale ay ka dambeeyeen ay u rajeynayso in si xun ay u geeriyoodaan. Xitaa waxay meelaha qaar inkiraysaa inuu ahaa qof muslim ah oo muslimnimadiisa ayay shaki gelinaysaa. Ha yeeshee aad ay u xun tahay ku digashada iyo ka hadalka wax aadan ogeyn oo qof aad u tiiriso sida qof la dulminayo oo dulmi tirsanaya, qof cadaalad darro tirsanaya, qof wax musuqmaasuq ah lagu sameeyay iyo arrimaha kale oo noocan oo kale ah. Ha yeeshee daqiiqado iyo saacado kadib gabadhan ayaa boostigeeda waxaa u daatay dad tala ka siinaya in ay joojiso waxan oo ay ilaah uga laabato. Ha yeeshee waxay commentiga qaybta reply-ga la yiraahdo ugu soo qortay fariimo kale oo jees ah. Ha yeeshee maxaa dhacay? Saacado kadib waxay soo daabacday isla qoraalkan oo ay ku leedahay walaalkay waa la dilay, waxaa dilay rag, wuxuu u shaqeynayay dowladnimada Soomaaliya, waxaana dareemayaa xanuun aad u daran. Haddaba taas waxay dadka ku sheegeen inay tahay wax qofka muslimka ah uu markasta ku degdegi karin, isla markaana boostigii ay soo qortay ee sheego ay ku diganaysay mid la mid ah gurigeeda ay ka dareentay, loona baahan yahay in ay ilaah u laabato oo ay cafis weydiisato qoyska generaalka iyada oo qaab qabiil ah ku difaacayso Xasan Garguurte iyo tiimkiisa filada joogta ee dadka shacabka ah iyo saraakiisha iyo ciidamada inta ay kala saareen u kala saaray qaab qabiil, qaar ay furmaha ku shubaan, qaar ay lacagta ka goostaan iyo qaar ay xabsiyada gaajo iyo caafimaad darro ugu dilaan. Tiimkan oo ah tiim la mid ah magafayaal gaar ahaan kuwa filada fadhiya ee Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaamiyo ayaa hadda waxay samaysteen tiim la mid ah tiimka gabadhan oo Malyuun la yiraahdo oo qaybta propagandada u qaabilsan kuna difaacaya qaab qabiil iyada oo lagu siinayo lacag yar oo $1,500 la igu sheegay in bishii ay ku qaataan. Waxayna u fadhiyaan qaybta meediyaha ee baraha bulshada, waxay ka difaacaan eedaha siyaasiyiinta u jeediyaan, waxay ka difaacaan falalka guracan oo tii ugu dambeysay ee dhacday oo kala ah iyo wax kasta oo dowladda Xasan uu hogaamiyo saameyn ku yeelan karta. Haddaba adiga ma qabtaa in dowlad gaar ahaan tan hadda jirta lagu difaaco baraha bulshada oo lacag lagu bixiyo isla markaana laga been sheego tacaddiga dadka iyo ciidamada loo geysanayo iyo xataa in lagu difaaco qaab qabiil? qaybta hoose igu reeb aragtidaada, muuqaalka sii gudbi. Fariintan waxay ahayd in mar kasta la joojiyo ku digashada iyo ku takrifalka dadka iyo in aan la sameynin wax ay samaysay gabadhan. Waxaana uga tacsiideynayaa dhankeyga geerida walaalkeeda, waxaana leeyahay kuwaana qaado waxa dhacay iyo boostigii aad soo qortay saacada ka hor 3 maalin ka hor iyo wixii xigay oo dadka ay kaaga digayeen, taas oo muujinaysa in dadka aad ku diganaysay xanuunka aad dareentay mid la mid ah iyaguna ay dareemayeen. Salaamu calaykum.